وبالله التوفيق. جزاك الله خير جدارك أما دربي جوري أولي هاي ملوك بجبيسان كرا جزاك الله خير. الحمد لله الدربي waxaan rajeynayaa laba jeer beenana dhibaato lahayn marka koobaad uu yahay darbigu uu yahay darbiyadan dhoobada leh leen aqalada inagu aan guryaha dhisan jiray waagi hore ama carshaanta ahay kuwa la midka ah guriga dhoobadii iyo biyaha la isku daray waa guriga lagu sameyn jiray markay qalashay saa u taabtana dhoobay lahayn jirtay darbina waa darbigu aduu yahay darbi board leh ama ku dhisan yahay ha noqdo ama dabaylo badan oo intay ku dhaceen korkiisa board saaran yahay ha noqdo hadii uu board ka leeyahay waa lagu gabagabeysan karaa dhibaato ma laha haddii daruuro keento oo darbiga mooyeen meel aad ciid ka raadisaba aadan haynoodan heliba karin way dhici kartaa inay cabsi ku diiday ciid inaad raadiso way dhici kartaa meeshu ciid beeneenan lahayn haddii saas oo kale tan noqotana ala qowlka culimada saciidan tayiban saciidka waxa la ma ala wajil ardi dhulka waxa korkiisa oo dhan isaga in loo qaatiyo salaadii in laga tagay noqotay oo ciid balama hayo iyadana inta lagu booreystay in lagu tukado insha Allah taala dhib malaha waxa soo haray hadii ciid la heli karo darbigiina uusan boor iyo ciid lahayn ma lagu gabagabeysan karaa masala khilaaf way laakiin asaxu alqawlan sida saxdihi ma yawi nabi عاصم حديثك ويري آيات القرآن كله فتيمم صعيدا طيبا يا حديث التيمم كامرتي وحا خصيصية أما قيد مقيد كدغا يو كوكوبا يا بو عيدي يا بوركا حديثك حذيفة النبي وخصائص إلهي كفضل مركو كهدلي وحيل وجعلت لنا تربتها طهورا عيد ذا نروغا دغا ظاهر marka darbiya dhaxan laga ma hadlin saasa sax ilaa bilaa tawfiiq جزاك الله خير